hal mar ayay baaba'een oo wada dhinteen dhammaan dadkii ku jiray qaybta gargaarka degdega ah kadib markii uu go'ay oksijiinka. Dhacdo la yaab iyo amakaa ku noqotay qof walba oo maqlay. Inta aanan dhacdadani gudaha u galin waxaan kaa codsanaynaa inaad like-garayso muuqaalkani siina faafiso si uu u gaaro saaxiibo badan oo sidoo kale wanaagsan. Sawir kalkaaliso gilgilay dalka Masar. Mid ka mid ah isbitaalada Masar ayaa waxaa ka go'ay oksijiinka oo ah waxa ugu muhiimsan ee qofka marka uu ku dhaco cudurka coronavirus-ka looga baahan yahay. Maadaama qofka markuu si xun ugu dhaco koronaha uu saameynayo qaybta neefsashada jirka sanbabka gaar ahaan, taas oo keenaysa in qofku uu u baahan yahay qalabka neefsiga oksijiinka. Haddii qalabkaas oksijiinka la waayo waxaa halis galaysa oo bis ay noqonaysaa noloshiisa qofkaas, taas oo ka dhigan in qofkaasi uu geeriyoonayo. Isbitaalka ayaa hal mar waxaa ka bilowday kala carar iyo isku dhexyaac kadib markii hal mar ay ka wada go'een dhammaan oksijiinadii. Ilbiriqsi walba waxay u ahayd nolol iyo geeri. Dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii ayaa anfariir iyo waxaa ku dhacay kala orod iyo wax raadin maadaama mas'uuliyadda bukaanada ay ayaga saarneyd. Laakiin xajmiga iyo culayska baahida markaas taagneyd oo ahayd baahi ay adag tahay inay si dhaqsi leh wax ugu qabtaan ama ay ugu jawaabaan ayaa sababtay in dhammaan ay geeriyoodaan bukaanadii isbitaalka ku jiray. Muuqaalkan kooban ee soo socda oo aan kula wadaagi doono waa isku dhexyaacii iyo kala orodkii isbitaalka ka dhacay markii mar qura oksijiinta go'day. Waxaana ka arki kartaa qofka muuqaalka duubaya oo leh dhammaan dadkii way dhammaadeen, dhammaan dadkii way geeriyoodeen, meeshan waa lagu baaba'ay, wax nool meesha ma joogaan ayuu ku celcelinayaa qofka muuqaalka duubaya. كل الناس ماتوا، كل ما هو في العناية مات، كل ما هو في العناية توفى، كل ما هو في العناية توفى، كل من في العناية توفى، كل من هو في العناية توفى، كل من هو في العناية توفى. ما فيش إلا بتوع التمريض، بتوع التمريض، ما فيش أكسجين، ما فيش، كل من في العناية توفى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. kalkaalisooyinkii ayaa ka qustay xaaladda ayagoo bukaanadii oo hortooda ku nafbaxaya. Gabadhani idin muuqato sawirkeeda waxay ka mid tahay kalkaalisooyinka isbitaalka kadib markii ay xaaladdu wax ka qaban weysay ayna aragtay in ay xaaladdu aysan sahlanayn ayay meel geesa fariisatay. Waxa aad baraha bulshada u qabsaday sawiradeeda oo laga bixiyay turjumaado badan. Dhammaan dadkii ku jiray qaybta gargaarka degdega ah way baaba'een oo way wada dhinteen, qofna kama badbaadin. Dadka sawirkeeda soo qaatay gabadha waxna ka qoray hadaladooda waxaa ka mid ahaa kalkaalisadu waxay ku sugan tahay xaalad quus ah kadib markii oksijiinta ka go'day isbitaalka. Ma jirto wax ay ka qaban karto xaaladda hadda isbitaalka uu ku jiro. Dhacdadani ayaa dhacday bilowgii sanadkan bishii 1 ee January waxayna ahayd musiibo aad u culus. Laakiin dalka Masar ayaa arintan aad u qariyay iskuna dayay inaan wax badan laga ogaanin. Inkastoo baraha bulshada Masaaridu ay aad u qabsatay arintani, waxay fajac iyo amakaa ku noqotay dhammaan dadkii arinkani maqlay.